kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada haddii aad ogeedeen dagaalka al-shabaab lagula jiray ee ka socda qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo halkaas al-shabaab maalmihii la soo dhaafay laga saaray gacmo ku haynta deegaano badan hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in maamulka koonfur galbeed ee ka arrimiya gobolada Baay iyo Bakool oo al-shabaab heshiis culus xalay kula gaaray magaalada Xudur maxay tahay sababta heshiiska al-shabaab loola galay maamulka koonfur galbeed ee ula galeen iyo sababta keentay in heshiis maamulka koonfur galbeed oo xilligan la galo kooxda al-shabaab iyadoo aan ognahay in guluf ka dhanaa kooxda uu ka socdo qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraanba xogtaas ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii ay tahay markii guriga soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe channelka like iyo saartid si aan u helno saaxiibo adigoo kaleeta aad iyo aad u mahadsan tahay sidaan la socono gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa ka socda dagaal ka dhanaa al-shabaab halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ciidanka xogta Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee dagaal culus kula jireen kooxda al-shabaab iyadoo ay xusid mudan tahay in al-shabaab maalmihii la soo dhaafay gacan ku haynta deegaano badan lagala wareegay taasoo hadda ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkii ugu cuslaa oo maalintiisii toddobaad ka soconaya qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Abuurey ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka socdaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab inkastoo goor sii horeysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi gawaari dagaal oo al-shabaab ay lahaayeen oo halkaas al-shabaab ugu carareen ay la wareegeen sidoo kale waxaa jira in rag ajaanib ah oo al-shabaab ka tirsanaa oo u dhashay wadamada Itoobiya iyo Carabtan meedadkooda saacadihii la soo dhaafay lagu arkay baraha bulshada iyo qaybo ka tirsan deegaanka Abuurey halkaas oo shacabka iyo ciidankaba ay ku jijiidayeen iyadoo dagaalkaasi culus uu ka socdo qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe haddana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxda al-shabaab ayaa hadda waxaa dhawr jibinaya maamul ka tirsan maamulada hoos yimaada dowladda federaalka kaas oo ah maamulka koonfur galbeed in xilligan uu dowladda federaalka dagaalka al-shabaab ay kula jirto uu ku dhawr jibiyo sababaha keeni kara ayaan rabaa inaan idin la wadaago sababta keeni karta in maamulka koonfur galbeed uu xilligan dowladda federaalka dagaalka al-shabaab ay kula jirto uu dhawr jibin ku sameeyay sababaha keeni kara koow waxaa ka mid ah in guud ahaanba maamulka koonfur galbeed uusan rabin in dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab uu ka qayb qaato walow uu dagaalka al-shabaab ee ka bilowday qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraanba uusan qayb ka ahayn maamulka koonfur galbeed taasoo hadda bilooyinkii la soo dhaafay dowladda federaalka ay shaacisay in wajiga saddexaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab uu ka bilaaban doono qaybo ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool iyo Shabeellaha Dhexe taasoo hadda ay ka arrimiso maamulka koonfur galbeed in maamulka degmada Xudur saacadihii la soo dhaafay kooxda al-shabaab ay heshiis kula gaareen magaalada Xudur ee gobolka Baay heshiiskan al-shabaab iyo maamulka degmada Xudur ay ku gaareen gobolka Baay ayaa waxa uu ahaa in guud ahaanba degmada Xudur al-shabaab ay ka qaadaan go'doonka ay ku hayeen bacdama halkaasi sida aan la socono al-shabaab ay go'doomiyeen sanado ka hor Xudur sida aan la socono sidoo kale maysan ka jirin nolol asaasi ah dadka halkaasi ku nool sababtoo ah Xudur raashinka iyo maciishadaha baabuurta halkaasi ay geeyaan waxay ku tagi jireen si dhab ah sidoo kale inta badan maciishada halkaas tagtay waxaa lagu keen jiray diyaarado sida dadka intooda badan ay la socdaan in maciishada halkaas diyaarad lagu geeyay baabuurta dhulka marjita ee al-shabaab go'doonkaasi waxaa ka dambeeyay kooxda al-shabaab sababtoo ah waxay haraadiyeen ama ay nolosha ku ciqaabeen dadkii halkaasi degnaa balse ugu dambeyn iyagoo awoodi kara in kooxda al-shabaab ay iska dulqaadaan ayaa hadda waxay noqdeen kuwa al-shabaab heshiis la gala taas oo sidoo kale dhabarjab ku ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka oo dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab maamulka hogaamiyo lafta gareen ayaa hadda u muuqda mid guud ahaanba u wacday dhanka kooxda al-shabaab maadaama qayb ka tirsan maamulkiisa xalay ay heshiis la gaareen maadaama xalay qayb ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay heshiis culus la gaareen kooxda al-shabaab sidoo kale koonfur galbeed qayb kama ahan dagaalka dhanka kooxda al-shabaab oo qaybo ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ee Shabeellaha Dhexe ku suganba sidoo kale al-shabaab meelaha ay fariismaha waaweyn ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah qaybo ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ee Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Dhexe iyo Baay iyo Bakool waxaa ka arrimiya maamulka koonfur galbeed wayna la socdaan in al-shabaab halkaas ay fariismo waaweyn ay ku leeyihiin iyadoo haddana taas maamulka koonfur galbeed ay ka warqabto maamulka degmada Xudur xalay waxay heshiis la gaareen kooxda al-shabaab heshiiskan ayaa ujeedadiisu ahaa in guud ahaanba degmada Xudur laga qaado go'doonka al-shabaab ay geliyeen oo hadda kadib laga dhigo degmo u furan in wax kasta ay yimaadaan wax kastana ay soo galaan markaan ku leeyahay wax kasta ayaa u furan wax kasta soo galaan markaan ku leeyahay ma ahan in al-shabaab
hadda kadib maamulka degmada Xudur ay u madax banaaneeyeen maamulka degmadaas balse ay u ogolaadeen in maciishadii iyo raashinkii markii horeba qudur daruuriga halkaas ciriiriga ku tagi jiray hadda kadib si hufan oo diiran ay ku tagaan sida ilo xog ogaal ah oo ka tirsan dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen sidoo kale al-shabaab waxay ka diiday maamulka koonfur galbeed maamulka degmada Xudur in guud ahaanba ciidanka xoogga Soomaaliyeed aysan lug ku yeelan karin maamulka degmada Xudur al-shabaab in maamulka degmada Xudur ay u diiday in ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay lug ku yeelato ayaa sabab u ah al-shabaab waxaa laga saaray inta badan qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaana maalmihii la soo dhaafay sida warar soo baxay ay sheegayeen al-shabaab isku soo urursanayeen gobolada Baay iyo Bakool sidoo kale in al-shabaab isku yimaadaan gobolada Baay iyo Bakool waxaa sabab u ah dagaalka culus ee dowladda federaalka ku jirta iyo duqeymaha had iyo jeer kaga socda qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyadoo ay xusud madan tahay sidoo kale in duqeyntii ugu dambeysay xalay ka dhacday deegaanka Awoorey al-shabaab loogu gubay baabuur dagaalo halkaasi ay saacadii la soo dhaafay kooxda ugu carartay sidoo kale duqeyn ka dhacday xalay deegaanka Awoorey ee gobolka Hiiraan al-shabaab waxaa loogu dilay tiro horjoogyaal ah iyo maleeshiyad ay watiin taas ayaa sababtay in al-shabaab ay guud ahaan isugu yimaado qaybo ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool taas oo ugu dambeyn al-shabaab xalay ay heshiis culus la gaareen maamulka degmada Xudur oo iyada hadda halkaas laga soo sheegayo in maamulka degmada Xudur iyo kooxda al-shabaab ay heshiis culus halkaas ku gaareen si kastaba gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa ka socda dagaalka dhinaca kooxda al-shabaab waxaana al-shabaab maalmihii la soo dhaafay ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo amar culus ka helaya talisyada ciidanka xoogga Soomaaliyeed ugu horeeyay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u joodo furmaha hore dagaalka dardargelinta dagaalka dhinaca kooxda al-shabaab ay amar culus ku siiyeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa suuro gelisay in al-shabaab gacan ku haynta deegaano badan laga soo celiyo taas oo ay hadda ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan sida waragta daawada in dagaal culus oo al-shabaab kaga socdo qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan balse taas bedelkeeda qayb ka tirsan maamulada dowladda federaalka hoos yimaada in heshiis gaadma ah oo qarsoodiha ay la galaan kooxda al-shabaab iyadoo aan ognahay in ay maamulka heshiiska al-shabaab ay la galayaan uu yahay maamulka ugu fadhiisan maamulada ka tirsan dowladda federaalka haddii intay la soo gaarto waxaan ka codsanayaa subscribe ila channelka like ni saartid si aan la saaxiibada oo kale taa